iyadoo ay la xidhiidho xuska maalinta 8 Maars oo loo asteeyay maalinta haweenka adduunka ayaa maanta xaflad lagu xusayo maalintaasi waxa lagu qabtay magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salal munaasabadani oo ka dhacday hoolka shirarka dawladda hoose degmada Saylac ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliin ay ka mid yihiin kuwa gobolka Salal kuwa degmada Saylac ururada haweenka iyo dhalinyarada saraakiisha booliska ee gobolka xildhibaano iyo waxgarad kale xafladani ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay la taliyaha arrimaha bulshada ee wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada mudane Axmed Maxamed Shaqale waxaan runtii hambalyeeyay ka sida guud ahaan haweenka wasiirada ugu culus ee isku leeyihiin xukuumadda cusub ee madaxweyne Muuse Bixi wasiirka shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Maruuhindo Jaamac Xirsi oo si gaar ah inay soo runtii waxaan rajaynaynaa in horena waanu nimid wasaaraduna inay dhawaan insha Allah iman doonto sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah hooyooyinka ku dhaqan magaalada Saylac dawladda Soomaaliland waa dal madax bannaan dawladda Soomaaliland waa dal madax bannaan dayn maqaatan daaray ku leeysadaan dayn maqaatan daaray ku leeysadaan xumaamadoonaan nabaday ku daaqayaan xumaamadoonaan nabaday ku daaqayaan ninkii doonta dacar bay waraabiyaan waxa kale oo isaguna halkaasi hadalkooda ka soo jeediyay xildhibaan aadan cabdullaahi boonde waran Salal ama degmadeena Saylac awal xafladahan iyo nidaamkani ma jiri balsa waa wax maanta ma aragtaan in kastoo ay iska jirta ayaadu jirtay haddana maanta waxa nasiib wanaaga barasaab cusub oo dhalinyaro ah oo shaqeynaya ayaa inagu soo kordhay geesta kale duqa degmada Saylac ahna gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmadaasi mudane Saacad Daahir Cige iyo barasaabka gobolka Salal mudane Mawlid Maxamed Nuur oo halkaasi hadallo kooban uga soo jeediyay haweenkaasi ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa qayb libaax ay ka qaataan arrimaha bulshada waxa weeye annagu waxaan ku dhiirigelinaynaa runtii haweenka inay ka mid noqdaan oo ka qayb qaataan shaqada ay ka qayb qaataan inay ka qayb qaataan horumarka degmada inay ka qayb qaataan inay ka qayb qaataan nabadda waxaan haweenka gobolka Salal gaar ahaan kuwan hadda la joogay ee degmada Saylac ay hor fadhiya iyo inta kale midiyaha marinaya hambalyo uga sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama ay tahay maalintii hambalyadaas oo aniga soo gaadhay annaa idinka soo gaarsiin maanta aniga waxay sharafa aniga barasaabkii gobolka Salal inaan maanta intaas soo haweeno oo gobolkii Salal gaar ahaan degmadii Saylac jooga aan maanta Maars kala qayb qaato Maxamed Cawaala Daahir Radio Hargeysa Saylac